kulanti wacan asxaabe meel walba joogtaan kuna soo dhawaada kanaalka arrimaha fanka. Halkan maanta waxaan kusoo gudbin doonaa aflaanta tiyaatarada India saaran iyo ganacsiga ay sameeyeen. Waxaana ku bilaabi doonaa filimka weyn ee Hollywood-ka ah Jumanji The Next Level, waxaana hogaamiye ka ah jalaaga caanka Dwayne Johnson. Filimkan ayaa shalay is-celceliyay isla markaasna sameeyay sarukac fiican asigoona keenay lacago ka badan kuwii isniintiisa koowaad uu keenay. Filimkan ayaa shalay sarukac fiican sameeyay asigoona ka faa'iideystay fasaxa shalay gelinkii dambe jiray maadaama maanta ay tahay Christmaska isla markaasna uu jiro fasax qaran. Jumanji The Next Level ayaa haatan muddo 13 maalmood ganacsigiisa u maraya 43 koror, wuxuuna isbuuciisa koowaad ama isbuuciisa labaad keeni doonaa qiyaas ahaan 14 koror asigoona filimkan tiigsanayo cimri ahaan 50 koror. Haddaba filimkan muddo 13 maalmood ganacsiga uu sameeyay isbuuciisa koowaad waxa uu sameeyay 33.98 koror, halka jimcadiisa labaad uu keenay 1.25 koror, sabtidiisa labaad waxa uu keenay 2.25 koror, axadiisa labaad waxa uu keenay 2.75 koror, isniintiisa labaad waxa uu keenay 1.35 koror, talaadadiisa labaad waxa uu keenay 1.65 koror. wadarta guud filimkan waa 43.23 koror. Dhanka kale waxaa tiyaatarada India saaran filimka Mardaa2. Filimkan ayaa shalay sameeyay sarakac fiican asigoona ka faa'iideystay fasaxa shalay gelinkii dambe jiray maadaama maanta ay tahay ciida Christmaska isla markaasna jira fasax qaran. Mardaa2 ayaa haatan muddo 13 maalmood gudahooda kusoo xareeyay 34.91 koror, wuxuuna isbuuciisa labaad keeni doonaa qiyaas ahaan 11 koror. Haddaba halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa filimkan 13 maalmood lacagaha uu keenay sida uu kala keenay. Isbuuciisa koowaad waxa uu keenay 28.1 koror, halka jimcadiisa labaad uu keenay 1.15 koror, sabtidiisa labaad waxa uu keenay 2 koror, axadiisa labaad waxa uu keenay 2.50 koror, isniintiisa labaad waxa uu keenay 1.25 koror, talaadadiisa labaad waxa uu keenay 1.40 koror. wadarta guud filimkan waa 34.91 koror. Dhanka kale waxaa tiyaatarada India saaran muddo 5 maalmood gudahooda filimka Dabangg3. Filimkan waxa uu soo xareeyay maalintiisa shanaad ama talaadadiisa koowaad lacago gaarayaan 9.25 koror, waana lacagii uu keenay isniintiisa koowaad. Filimkan ayaa helay gelinkii dambe fasax qaran maadaama ay maanta tahay ciida Christmaska. Filimkan ayaa muddo 5 maalmood gudahooda kusoo xareeyay 91.50 koror, jimcadiisa koowaad waxa uu keenay 22.50 koror, sabtidiisa koowaad waxa uu keenay 22 koror, axadiisa koowaad waxa uu keenay 28.50 koror, isniintiisa koowaad waxa uu keenay 9.25 koror, talaadadiisa koowaad waxa uu keenay 9.25 koror. wadarta guud oo filimkan uu keenay waa 91.50 koror.